yaan أبو مازنت ويا سعيد بانسن سعيد توجا حدا دينو أرجنا توجا على دي نينك أمد واحد كوه شيسو أمد مساكينة تقاليه يدسكو هسويو وحي أي كوه شيسو نينك إلى لون ويا إن توجا هنا محددة طبعاً نينك هذين كوه شينو سطر يلا نكرر عنه حطوه فارح كرر عفرتن دمان تنا فارح لا دجالنا وندهن توج باتها أمد كفريسو وأمد لقى قبته محددين عندنا هير أنت عن لك دتك نسوني جالسين كرنا بسم الله arrimaha noocaas oo kala oo shakhsiyaadka sida ay sheegtay hadda in farta lagu fiiqo qofkaas inuu yahay qof umada dhibaateynaya in dadka laga dhax sooco oo inuu dambi gala dadka loo sheego waxyaabaha ugu badan ee lagu fulin karay wacyigelin iyo meelahaas oo laga hadla kaliya inay tahay uma maleynayo waxaan qabaa inay tahay arrin u baahan manhajka wax la socdo inay tahay waa dhibaato ka socota xagga manhajka weeyaan asaaska hore weeyaan manhajku waa shayga kaliya ummadda ku sheeb garaynaya in uu ilmuhu isaga oo yar guriga hooyadii markuu wax ka soo barto kadib uu banaanka carruurta wadana la ciyaarada isoo korodho dugsi dhexe dugsi sare ilaa intuu jaamacad ka galo kadib bulshadii uu ku dhashay dib uu ugu soo laabanayo intaas oo dhan manhajka ilmahaas iyo waxyaabaha uu arkay kala duwan oo dhan ilmaha waxay ku sheeb garanaysaa oo ilmaha ay ku qoraysaa in uu waxyaabaha ceebta loo arko inuu ka digtoonaado waxyaabaha wanaaggan oo dhiirigeliya sideedaba waxayna bulshadu aynan ceebaysanina lagama yaabano qofka bini'aadamkii inuu ka haro maanta ka inaga Soomaali ahaan hadii la yiraahdo nin maanta intuu khamriga qaato suuqa iska dhex mari karay macnaheedu way adag tahay sababta keento waxa weeyaan dhaqankiina oo ceebaysanay weeyaan dhaqankaas inuu ceebaysto macnaha waxa ka timid manhajka diiniga weeyaan sidaas oo kale arrimaha imika ay ka mid tahay arrinta imika shaqo kale waa nolosha musiqeeda oo kale weeyaan ha dan nolosha bini'aadamka in sida loo musuqmaasuqo oo ay saa u baabaado waxa weeyaan waxa muddo kan musuqmaasuqaya wuxuu inuu ku dhiiro waxa keenay wuxuu arkaya shacabkii oo aan ceebaysanin dan wuxuu fursad u helayaa in uu arrimaha inuu xudano u sameeyo riyaalkiisu inuu xudano ku biyo marka taas waxay keenaysaa in ay dadyowgii ummadda ugu liitay hadda markii taan sheegayna qaybtii shanaad ee ahaa qaybtii laga tashanayay in ay fursad fiican u helaan wax walba oo ay shacabku aynan fogin iyaguna maanta inay ka faa'iideystaan taasan qabaa inay waxyaabaha hoggaansan la'aanta sharciga maxaa keenaya sida Saciid hoggaansananta sharciga kan oo xafiiska ganacsigu marar badan buu soo dhajiyay warqad wax ka hirgelaya iyo wax socdaana ma jirto waa maxay dhibaatadu ma inaga wax maqal ma sharcigan inaan quursanayna oo inaan yareysanayna ma dawladdeena ka go'nayno warqadan bay ku egtahay sheekadu dhibku maxaa ku jira seenu sixi kareenaa haddii ma taqaanaa deegaankeena aan soo qaato qarnigii ugu dambeeyay waxaa soo maray deegaankan afar halgan oo kamid yahay halgankii Daraawiishta halgankii Nasrullahi halgankii WSLF iyo halgankii ONLF oo bilowday afar sideetankii la hadda waa hal qarni gudaheega afar halgan in aan waxay ku tusaysaa ummadaas nabadgelyada ay haysteen in ay aad u hooseyso taas waxay door muhiim ah ku leedahay ummadan in ay wax fahmaan sharciga in la ilaaliyo fursadii lagu ilaalinayay aqoonteedii cilmigeedii intuba inay aad ugu yareeyay dhinaca kale waxa iyaduna jirtay haba kala darnaadana maamuladii dalka soo maray ee deegaankan iyaguna soo maamulayay inay si aad iyo aad ay waqti badan u galiyeen sidii midnimadii iyo fahamka shuruucda iyo nidaamka ummadan inay fahanto looga dagaalami lahaa taas waxay dhaxasiisay shacabku inay aad iyo aad ay keer u siin waayeen wax allaali wixii dawladda soo dhisay imika cadaalada Itoobiya kore dir dhabaynta noo jirto waxa maanta la soo dhajiyay isla caawadan isla biro lagu dhaqmayaa tan waxa ka boodi kartaa ma jirto bajaaj kastan askari ma saarna ta waxa keentay bajaaj askari ma saarna intii loo qoondeeyay buna ka qaadi marka sababtu waa ummadeena weeyaan ummadu qayb ka tahay maamuladii soo maray inay qayb ka yihiin waliba aan sida aan fulayo waxa shacabka taa kaga sii awood badan waa dhibaatooyin faraha badan ay soo mareen